بسم الله الرحمن الرحيم قميصتي سيدي توانك ديسمبر سنة كان كجرنا لبكون لباتنيشن waxaa magaalada Kismaayo ka dhacay shir ay isugu yimaadeen isbahaysiga mucaaradka ee Muqdisho fadhigooda uu ahaa iyo laba ka mid ah dawlad goboleedyada Soomaaliya oo ah Puntland iyo Jubbaland maalinkaas madaxdii halkaas ka qayb gashay hadallo ay jeediyeen oo dabcan warbaahintu ay sii deysay ama baahisay warbaahin badan oo Soomaaliyeed oo meelo kala duwan ka timid ayaa ka qayb gashay kulankaasi habeenkaasi 18 December waxaa baraha bulshada gaar ahaan kuwa Soomaalidu aad ku isticmaasho sida Facebook-ga oo anagu aan monitor gareynay lagu baahiyay cod gaaban oo 1 daqiiqo iyo 4 ilbiriqsi soconayay kaas oo loo ekeysiyay Senator Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo ah xubin ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ahna madaxweynihii hore ee Puntland codkaasi oo ahaa cod lagu sameeyay aaladda liiraahdo aqliga macmalka ah ama artificial intelligence waxa loo ekeysiyay inay tahay hadal uu jeediyay Senator Cabdiraxmaan Faroole mana ahayn dabcan oo waxay ahayd been abuur laakiin nasiib darro codka markii lagu faafiyay baraha bulshada gaar ahaan barta Facebook-ga wuxuu u faafay si degdeg ah waray adkeed warbaahintu inay qabato ama ay gartaan saxafiyiin badanna kuma baraarugsaneen nasiib darro baraha bulshada gaar ahaan barta Facebook ayaa si weyn loogu wadaagay oo loogu baahiyay markii aan helnay fariimo nooga imaanayay saxafiyiin iyo qaybaha bulshada ayaanu bilownay inaan u kuurgalno codkaasi oo aan miisaan saarno oo aan fiirino ama aan ku tijaabino software-rada kala duwan ee aan isticmaalno oo loogu talagalay inay qabtaan ama ay fiiriyaan aaladda lagu sameeyay ama waxyaabaha lagu soo sameeyay AI-da ama artificial intelligence oo adduunka hadda si weyn looga isticmaalo way adkeed runtii in si degdeg ah loo fahmo ama loo garto laakiin baaxadda uu ku fidaayay codkaasi yar oo baraha bulshada lagu faafiyay ayaa runtii ahayd mid walaac leh مثلا qamiistii ilaa iyo jimcihii oo ahayd 24 saac wax ka yar markii codka uu soo baxay halka daqiiqo iyo 40 second ah waxaanu aragnay in ka badan 86 book ama profile oo Facebook gudihiisa ah ay share gareeyeen ama soo dhigeen ama publish gareeyeen codkaasi halka daqiiqo iyo 4 ilbiriqsi ah oo ahaa fake ama been abuur lagu sameeyay aaladda artificial intelligence-ka dadka faafiyay nasiib darro waxa ku jiray dad saxafiyiin ah intooda badanna ku lug leh warbaahinta dawladda federaalka ee magaalada Muqdisho iyo qaar taageersan dawladda federaalka gaar ahaan Xasan Sheekh Maxamuud habeenkii jimcaha oo 24 saac ku beegneed markii codkaasi uu soo baxay ilaa iyo inta aanu monitor gareynta ama dabagalka ku haynay waxa uu codka gaaray in ka badan 1,115,000 oo views ama daawasho ama dad viewska Facebook-ga wuxuu u xisaabaa inta jeer ee qof uu arkay content ama macluumaad ku jira barta Facebook-ga si aan u fahamno baaxadda fiditaanka ama inta ay la eg tahay faafinta codkaasi inta meel uu gaaray ayaa waxaanu ka bilownay wax la yiraahdo keyword search ama in eray kamid ah erayada la isticmaalo ama dadku ay ku qoraan baraha bulshada inaan gelino aaladda Facebook gaar ahaan qaybta raadinta ama search-ga kadibna aanu aragno inta jeer ama inta profile ama inta account soo bandhigtay ama daabacday warbixintaas gaar ahaan anagoo isticmaalayna erayo xadidan oo maragta lagu raadinayo ama lagu search gareynayo baaritaankaas wuxuuna siiyay in ka badan 86 bogag oo Facebook gudihiisa ah iyo profile isugu jira oo ay isticmaalaan dad isugu jira saxafiyiin gaar ahaan kuwa ku lugta leh warbaahinta dawladda ee magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah taageerayaasha Xasan Sheekh waxaan xulista ku soo koobnay 86 sababtoo ah 86 waxay ahaayeen kuwa leh followers macquul ah oo meesha ugu yar ay tahay ilaa 6,000 inta ugu badan ay tahay ilaa iyo 800,000 oo dad ah ama followers ay ku xiran yihiin muddada 24 saac ka yar ee ka bilaabata jimcaha qamiista ka bilaabata kuna dhamaata jimcaha waxa codka clipka halka daqiiqo iyo 4 second ah daawatay ama aragtay ama isha ku dhufatay dad
hal milyan iyo boqol iyo toban iyo shan kun ka badan. waana sii wadnay ukurgalista ama monitoringka waan sii sugnay. sabtidii oo ahayd maalinkii shalay wuxuu gaaray kilibka 2 milyan dad kor u dhaafay. guud ahaan Facebook sida ay warbixinteeda xayisiimaha ku bandhigtay ama ku daawacday sanadkan 2025 dadka Soomaaliya isticmaala ee Facebook isticmaala ee Soomaaliya jooga ama Soomaaliya ku lugta leh waxa lagu tilmaamaa inay yihiin 2 milyan iyo 600 oo kun ay Facebook sheegaysaa. tabcineed waxa waaye badi dadka ku jira Facebook ee Soomaaliya jooga way arkeen codkaasi fake ah ee been abuurka ah ee AI-da lagu sameeyay. ukurgalisteena waxaan sidoo kale ku ogaanay kelmadaha lagu dhex isticmaalay codka halka daqiiqo iyo 4 second ah inay ku jireen ilaa 4 eray ama weerood oo laga soo googooyay khudbadii uu senator Cabdiraxmaan Faroole ka jeediyay Kismaayo maalinkii Khamiista ee 18 bisha December. erayadaas oo la soo qaaday kadibna lagu tababaray mashiinka AI-da ah ee sameeya voice over. waa mashiinka codka qofka sameeya ee loogu talagalay in qoraal intaad geliso kadibna uu ku aqriyo qoraalkaasi sida uu rabto uu kuugu aqriyo. marar badan mashiinada AI-da ah waxay sameeyaan khaladaad, laakiin marka uu qofka hayo sameynaya daatada been abuurta ah wuxuu ku tababaraa qofka saxda ama runta ah codkiisii ayuu ku tababaraa oo realka ah oo khudbado ama hadallo meel laga jeediyay ayaa inta la soo gooyo kadibna lagu shubaa mashiinka ayaa lagu tababaraa inuu codka xafido. marka uu mashiinka codka xafido kadib ayaa la yiraahdaa qoraalkan u bedel adigoo isticmaalaya codkan aan ku siiyay ee aad xafiday. sidaas ayaa loo sameeyay codka senator Faroole. hadallada ku jirana aslan baba ma ahayn hadallo uu isagu yiri ama toos hadalkiisa afkiisa uga soo baxay ee waxay ahayn kuwa been abuur ah ee lagu sameeyay mashiinka AI-da ah. laakiin saameyntu inta kuma ekayn inkastoo ay been abuur ahayd arrintan oo ay ahayd warbaahinta iyo saxafiyiinta inay ku baraarugsanaadaan. waxa walaac leh oo aan ka walaacsanahay haddaan nahay ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS in qaar ka mid ah warbaahinta magaalada Muqdisho ay codkaas u isticmaaleen warbixinadooda oo ay ku dareen wararkooda maalinlaha ah. arrinta labaad ka walaacsanahay waxa waaye in ay jireen dad codkaas soo xiganayay been abuurka ah oo khudbado ka jeedinayay meelo kala duwan. مثلا wasiirka gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi ayaa meel fagaara ka hadlay maalinkii Jimcaha iyadoo dabcan ay amleynayeen inay ahayd campaign oo uu soo qaatay mar kale ku celiyay erey ka mid ah codkaasi been abuurka ah ee laga sameeyay senator Faroole. waxa inta iyadana jirtay nin sheegtay nabadoon oo isaguna ka hadlay meel ka mid ah Muqdisho oo isla ku soo celiyay kalimaadkii been abuurka ahaa ee ka yimid aaladda AI-da kuna sii kordhiyay ereyo kale oo runtii xanaf leh kaasoo warbaahin ama television ka mid ah telefishinada magaalada Muqdisho uu sii isticmaalay. arrinta waa riski qatarteeda ay leedahay. waxaa ka dhalan kara dunuub waxaana ka dhalan kara mushkilad ka weyn waxa aan ka hadlayn ayaa ka dhalan kara. waxaan rabnaa saxafiyiinta iyo xarumaha warbaahinta iyo tifaftriyaashoodaba inaan ku boorino inay aad uga taxadiraan oo ay iska ilaaliyaan waxyaabaha lagu sameeyo aaladda AI-da ee noqon kara macluumaad been abuur ah ama aan jirin ama marin habaabin ah oo keeni kara in bulshada ay isku dhacdo ama dadku ay isnacaan ama sidoo kale keeni kara in warbaahinta laftirkeedu waxyaabaha ay baahinayso ay ka dhashaan aaminaad darro iyo kalsooni darro bulshada dhexdeeda ah ama ay ka dhalato in warbaahinta laftirkeeda loo qaato mid aan la aamini karin. taas waxaa iyadana xigtaa warbaahinta amuriyaashu dhibaato badan ay soo mareen Soomaaliyeed waxay mudan in lagu bagaadiyo shaqadooda. hase yeeshee waa inay dadaalkooda kordhiyaan oo ay tababaro dheeraad qaataan. tifaftriyaasha iyo saxafiyiintuna ay bartaan oo ay fahmaan hadba teknolojiyadda soo baxaysa iyo sida ay u saameyn karto hababkooda warbaahinta. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin.